abaalmarintan aan hayo waxay ka dhaxaysaa ku dhawaad 800 oo ciyaaryahan oo ku tartamaya caasimadda Hargeysa 18 kooxood 18 gobol ka kala socday guud ahaan tartankaasi gabagaba ayuu ku dhow yahay balse tani waa taxiisaha gooniya leh waxay ka dhaxaysaa ku dhawaad 800 oo ciyaaryahan oo caasimadda Hargeysa ku kala sugan waxay soo ku guuleysan doonaa ciyaaryahanka Soomaaliland ugu wanaagsan tani ayaa noqon doonta markii labaad oo xidhiidha Soomaaliland ay abaalmarintani martigelinayso hore waxa ugu guuleystay Cabduduud Cabdiqani oo ciyaaryahan ka tirsanaa kooxda Goodira balse iminka waxa ku guuleysan doonay lama garanayo haddii aad tartamadan si dhow la socotay sanadkan abaalmarintan baana doorkaya u qalmaya markii xidhiidha 30 sano ka bacdi Soomaaliland waxay yeelan doontaa ciyaartooygii labaad ee ugu wanaagsanaada taariikhda iyadoo si feer lagu soo xuli doono iyuu noqon doonaa guuleystaha abaalmarintani balse waxaanad ogeyn daawado ka qarsoon in haweeney ay u tartamayso abaalmarintani waxa la bixin doonaa laba abaalmarinood waa tan oo uu ku guuleysan doono ciyaaryahanka ugu wanaagsan Soomaaliland iyo sidoo kale abaalmarinta baaladoorka haweeneydii ugu wanaagsanay tartankii ka dhamaaday Hargeysa Stadium yaa ku guuleysan doona waxa xiiso gooniye leh in markii ugu horeysay ay noqonayso dhul Soomaaliyeed lagu abaalmariyo abaalmarintani iyadoo oo guud ahaan tartankaasi hablihii ka soo qayb galay laga soo xuli doono haweeneydii ugu wanaagsanayd waa markii ugu horeysay 30 sano ka bacdi Soomaaliland haweeney lagu abaalmarinayo ku guuleystay abaalmarinta baaladoorka habeenkaasi ayaa si toos ah u daawan doonta waxay naga xiga laba toddobaad yay noqon doonaan labada guuleyste ee abaalmarinaha ku guuleysan doona waa abaalmarinta baaladoorka ee haweenka iyo abaalmarinta baaladoorka ee ragga 800 oo ciyaaryahan oo ka kala socday Burco Berbera Hargeysa iyo sidoo kale Awdal iyo Gibiley iyo sidoo kale Sool yuu noqon doonaa guuleystahaasi adigu iyo sayadu rajeynaysaa daawada inuu abaalmarintani ku guuleysto ciyaartooyga ka socday gobolada mid kamid ah haddii aad inuu garanayso faalada hoose ayaa noo dhaafi doontaa guuleystaha abaalmarintani cid uu noqon doono taxwiisaha gooniyalana waxay noqon doontaa in markii ugu horeysay haweeney ay ku guuleysan doonto abaalmarintani si dhiibliya ama si dadkoo dhan ay arkayaana habeenkaasi abaalmarintan loo guddoonsiin doono goob ay isugu iman doonaan dhammaan dadka kubadda cagta xiiseeya iyo dhammaan dadka kubadda cagta jecel iyo bahda sportsku ay goob joog u noqon doonaan taasi ayaa ku cusub guud ahaan kubadda cagta haddii aad inuu daawanaysay tartamadaasi guuleystaha hoos ayaad nagula wadaagaysaa ka aad isleedahay wuu qalmayaa abaalmarintanina hoos ayaad nagula wadaagaysaa mar labaad ayay yeelan doontaa Soomaaliland si joogta ayaa sanadkii hore loo bixiyay sanad kadibna waa ku guuleysan doona abaalmarintani hoos ayaad nagula wadaagaysaa abaalmarinahan iyo kuwa kale oo lamida waxaad si joogta uga socon doontaa warbixinahooda Arda Sports oo si dhow kula wadaagi doonta guuleystayaasha iyo sidoo kale muuqaalada si toosa looga duubi doono ciyaaryahanadaasi ku guuleysan doona abaalmarinahan waad mahadsantiin